bilaabaynaa cashirkeennii oo muddaha ka takaday maadada structural engineering 1 isbuuc la soo dhaafay waan mashquulsanaay sidaas awgeed waxba ma aan soo dhigin muddo 11 beriya laakiin insha Allah isbuucan dib ayaan u bilaabaynaa dib ayaan u hoggaanaynaa wuxuu inoo marayay laba assignment ayaan diray assignmentii koowaad ardayda badankooda way soo shaqeeyeen ardayda way wada garteen ardayda aanan garanna waa la shaqeeyay waana fahansiiyay assignmentiga labaad ayuu kan ahay waa too easy oo mid aad u fudud laakiin ardayda waan waayay arday ka soo shaqeyso sida la ajligeed maanta waxaan go'aansaday inaan ka shaqeeyo assignmentiga labaad soo marka cashirkan waxaa noo noqonayaa cashirkeennii saddexaad ee maadada structural engineering 1ka meeshan waxaan ku haysanaa beam simple beam soo marka meeshan waxaan ku haysanaa UDL halkaan oo laba load ah then wax kale ma haysto intana 2 meter 4 meter 2 meter haysta sida aad ka arki doontaan sawirkaas oo sawir ah geeskan aad arki doontaan insha Allah waa soo dhigi doonaa marka aan ka shaqeyno waa kana halkan ayaan ku sameynay meesha waxaan ku haysanaa 200 UDL load oo 200 kg 4 meter UDL load kan ayaan waxaan u bedelayaa point load wax kale ma aan sameyn waana kana si faahfaahsan halkan waa 600 ka ahna UDL load ayaa waxaan ku dhuftay waan ii sheegay 200 oo waxa lagu dhufanaa total distance oo UDL ku fadhiyo 800 load ayaa soo baxaya waxaana la dhigaa distance-gan dhaxbartamiisa 4 meter-ka dhaxbartamiisa 4 meter-kan hadii laba loo qaybiyo waa 2 iyo 2 soo marka waxaan dhigayaa halkaas oo 2 iyo 2 ayaa u kala qaybinaya dhaxbartami ayuu dhacayaa example-kan aniga xitaa waxaan u maleynayaa inuu fudud yahay laakiin markii aan ka shaqeynayay ayaan gartay xoogaa example-ka inuu trick fara badan ku jiro sida la ajligeed waxaan go'aansaday inaan aniga kasoo shaqeeyo oo cashir ahaan aan igu tuso excuse me soo marka hadda waxaan UDL loadki ayaa waxaan u bedelay point load sidaad u jeedaan wax kale ma aan sameyn oo ah step-kii koowaad wax alaal wixii loo dhahayso haddii incline load yahay example-ka xiga ayaan igu tusi doonaa incline loadka UDL load iyo triangular load hadda wax incline load oo janjeero ma haysto triangular load ma haysto laakiin UDL load haysta UDL loadki ayaa waxaan u bedelay point load wax kale ma aan sameyn warkaas waan sawir soo marka waxaan imaanaynaa calculation-ka ardayda badanaa summation of y nin qaadanayo waxa arkaysaa oo distance iyo load ku dhufanayo moment ma bilaa calaykum isku daya in aad cashiradii hore aad dhageysataan iyo cashiradii labaad iyo kan moment sida aan aniga ugu shaqeynayo ugu soo shaqeeya algaamo momentiga inta summation of y qaadan waxa wanaagsan inaad soo xaliso momentiga way faantina umalena waxa wanaagsan inaad soo xaliso wanaagsanaba waa must waa inaad soo qaadato marka koowaad ama soo xaliso momentiga inaad soo xaliso soo marka soo marka halkaan aan u maano momentiga halkaan aan ka qaadano momentiga wax kale ma aan sameyn ala pointiyada ayaa u bixiyay halkaan waxa u bixiyay A B C E D soo marka haddaan calculation-kayga aan qaato moment haddaan ka qaato moment at A aan qaatay soo marka R1 tan waxay noqonaysaa total 0 oo lama xisaabsanayo 600 kan oo halkaan jiro ayaa waxaan ku dhufanayaa distance-gaas oo halkaas u jirto soo positive na waaye oo maadaama uu clockwise yahay anin clockwise ayaa positive yahay 600 oo lagu dhufto 2 waa taasaa way fahanteen plus aan leeyahay 800 kan maadaama uu kala bartami xag jiro 2 e plus 2 oo ah 4 800 oo lagu dhufto 4 waana clockwise dhankaan ayuu u soo socdaa xulimada 600 so 600 kale ayaan halkaan ku haysanaa total distance oo u jirana waa 6 halkaan 600 oo lagu dhuftay 6 waa taasaa then R2 dan oo kor u socoto oo iyadana saas u soo baxayso oo halkaan imaanayso oo R2 oo lagu dhufto total distance oo 8 way faanteen oo malena R2 oo lagu dhuftay 8 is equal to 0 halkaan waa R2 oo lagu dhuftay 8 is equal to 0 soo marka R2 da banaanka soo bixinaya waxaa soo helayaa intaan ayaa isku soo dardaraysa 600 waa 1200 waxaa ku dhufanaysa waxaa ku daraysa 3200 waxaa ku sii daraysa 3600 intaas la isku dar hadaad u qaybiso 8 waxaa ku soo bixayso 1000 loo taqaanin si loo xaliyo then hadda waxaan soo helay R2 maadaama aan soo helay R2-deeda aan soo helay hadda waxaan u baahanahay inaan soo helo R1 maxaa waxa waa vertical forces-ka
force-ga taagan halkan ma hal mar kor u soo qaad hal meeq force-ga taagan 1 2 3 oo downward ah iyo 4 iyo 5 oo upward ah shan force waa shantaas force ayaan soo helayaa kan waa haystaa kan waa haystaa kan waa haystaa kan waa soo helay soo maxaa iga maqan kana iga maqan wixii hoos u socdo waa minus wixii kor u socdana waa plus nothing waa kana markintii maaw summation of fy is equal to 0 r1 r1 plus r2 oo maadaama kor u socoto r1 ay kor u socoto labadooda plus waaye minus 600 ka hoos u socdo minus 600 kala haysto iyo minus 800 is equal to 0 then r1 plus 1000 r2 deedii waxaa ku badishay 1000 oo aan aniga soo helay adartaan waatana then minus 600 minus 600 minus 800 oo loadki oo hoos u socda then r1 waxaa isoo baxayso 1000 kg r1 waa soo helay oo 1000 kg ayaa isoo baxday r2 waa soo helay oo 1000 kg ayaa isoo baxday markan maxaa loo baahan yahay in la sameeyo waxaa loo baahan yahay wax kale ma ahan in la sameeyo in la sawiro SFD and BMD aad iyo aad ay u fududahay inta waan isku dayay waa iska dayay iyadoo fasiixa halkan igu qoray halkan ay maana marka wax kale ma aan sameeynin waa kana beamkeygii waa kana halkan waxaa ku haystaa 1000 halkan waxaa soo helay 1000 intan waxaa waa 600 800 600 wax kale ma haysto dan baalkan ay kala socoyaa 2 iyo 2 halkan oo maana marka aad sameynaysid shear force diagram shear force maxaa waa shear force isu geynta wadarta forces ka taagan ayaa la sawiraa force ka taagan maxaa waa vertical force maxaa waa kuwan waa 1 2 3 4 5 mifan bending moment-igana wax kale maaha waxaa waaye forceska macnaha force markii lagu dhufto distance-ga waxaa waaye moment oo noqona wax qalooca marka qaloocaas ayaa loo yaqaan moment halkan ayaan lagu sawiraa iyadoo wax kale maaha soo marka aan imaano shear force-ga aan halkan haysano marka aan geeskan joogno oo A ah inta B dheh inta C dheh intana D dheh halkan point A markaa joogno oo halkaas waxaa samaysaan markaad sawiraysaan halkan 0 ku qor halkan SFD ku qor waxaana aan haysto waa kg halkaas ku qor bilaa calaykum markaa samaysaan xariiqintaan dadka way ka soo tageen ardayda qaar xariiqintaan saas u sawir marka koowaad xariiqintaan ma sawir sorry qalinkan madow aan ku sawireynaa xariiqintaan xariiqintaan waxaa xariiqinta kala sooceysay minus iyo plus wixii kor ka jiro waa plus wixii hoos ugu jirona waa minus so sidaad haddaba ku arkaysaan kuwan plus so marka imaano halkan ay joogaa waa 0 maada ujeedaa halkaas waa 0 so meeqa inta soo helo 1000 shear force maxaan dhahay waa isu geynta qeex haddii loo shear force waa summation of vertical forceska ama plus ahaada ama minus ahaada waa la kala jiraan dhib male wixii keenan ku sawiraan shear force-giina must waa inuu 0 keeno bending moment-gi 0 ma imaan karo hadooro waa imaan karaa laakiin hadduu shear force-gaada uu 0 ku keeno example-kaada ku saxay 1000 ayaa haysataa oo kor ah geeskana kor ayaa u soconaysaa maadaama ay kor u socoto 1000 oo r1 tahay halkaas ayaa tagaysaa halkan inta soo fiiri halkan iyo halkan maxaa u dhaxeeya wax oo load uma dhaxeeyo maadaama uusan wax load u duucin waxaa siinaysaa distance oo macnaha horizontal caadi ah oo soo jiidaysaa line oo horizontal ah halkan markaa imaato oo halkaas 600-ki inta meeqa ku haystaa 1000 600-ka inta u socotaa minus ayay u socotaa maadaama ay minus u socoto soo marka kan oo kor u yahay waa ka jaraya 600-ka 1000 haddii laga jaro waxay keenaysaa 400 weli waxaan joogaa positive kaswa soo maanaya halkaas ay imaanaya 400-ka weli positive-ka jooga halkan imo waxaan dhahay haddii oo UDL loo diyaalo oo aan SFD sawirayo waxaan isticmaalayaa incline mi fahanteen xariiqinta wax ku sawiraya incline haddii aad xasuustaan soo marka halkan markaad joogo waxaa la rabaa inaad halkan iyo halkaas oo ah geeskaas inaad xariiqin oo incline aad samayso halkan ayaa jooga 400 oo positive haystaa hoos meeshan waxaa yaalo 800 oo ah negative oo downward u socoto so 400 hadda 800 ka jarto inta kusoo aadi 400 hadda 400 kan 800 ka jarto waa minus 400 kale waa so marka halkaas ayayna tagay oo ah geeska loadka kale
loadkan kale weli ma ii xisaabsano incline aynu ku tagay waa jiidaysa tar halkaas ku jiidaysa wax kale ma aha soo marka halkaas isku leedahay incline ayaa isticmaalaysaa fahantiiso maaha soo marka maxaa haysanaa waxaa haysanaa minus 400 ay soo baxday minus 400 markay soo baxday meeshan oo 400 ka minus ay tahay meeshan marka minus ay tahay waxaa haystaa inta markii la joogo loadkan 600 oo hoos u socdo maadaama 600 hoos u socdo waa ku daraysaa labadood maadaama ay minus isleeyihiin minus 400 minus 600 hadaa ku darto waxaa waa minus 1000 waa tana ma fahanteen minus 1000 waa 1000 marka halkaas geyso calaamadan badan ama la muujiyo 1000 la iskaga qoraa soo marka halkaa markaa geyso wax looda u dhaxeeyo oo sidii tan oo kale ahayd soo waa jiidays halkaas geynaysaa oo iyadana horizontal line ayaa u isticmaalaysaa R2deeda 1000 waaye 1000 oo ah upward mid kor usoo socoto kor ayaa usoo wadaysaa 0 ayaa imaanaysaa soo hadda waxaan sameeyey SFD oo ah SFD waa ujeedaan waxay keentay 0 ayaa keentay marka la isku day inaan ku celiyo waxaan ku dhahay halka marka joogo 0 ay ahayd 1000 ay haysataa 1000 kor ayaa u qaaday 1000 kor marka u qaaday 1000 kor ayaa u qaaday oo positive maadaama ay kor u socoto wax looda uma dhaxeeyo horizontal line ayaa isticmaalay halkan 600 ayaa taalo oo downward oo hoos u socoto 1000 k ayaa ka jara 400 ay soo bixayso 400 markay ay soo baxdo waxaan sameynaa shape ka aan wax ku sameynaa ayaan bedela sababtoo ah meeshan waxaa imaaday load ah UDL maadaama load UDL imaaday SFD wuxuu noqonayaa incline soo halkaas ayaa incline isticmaalaya ilaa loadka kale ka gaarayo oo incline ah minus 800 minus 800 plus 400 dil kala jiro waa minus 400 halkaas maxay imaanaysaa minus 400 minus 400 halkaas markay u maad 600 oo bobsinaya xogaa ku cilmi 600 oo u socoto minus dhankiisa idan waxay noqonaysaa minus 1000 maadaama u socoto labada load structure ka kor waxba uma dhaxeeyaan maadaama aysan waxba u dhaxeenin waxa sameynaysaa horizontal line marka isticmaasho halka marka joogto waxa haysataa R2deeda sida dad R1 ka kor uu kaco kale R2deeda had maxay haystaa geeskan ay joogo R2 meeqa haystaa upward oo 1000 kor ay imaanay 0 iskeen very simple soo marka halkaan imaano halkaan BMD ga meesha uu adag waaye waxaa jiro wax yar oo triga aanan video hore aan ku soo sheegay halkaan ma naqaano distance gaan anaga ma naqaano hadda way fududahay oo dhaxbartamiye ay ka jirtay distance gaan ma naqaano waan tusi doonaa marka gaarno hal mar intimo BMD maxaa lagu helaa BMD waxaa lagu helaa area of SFD meeqa area haysanaa 1 2 3 4 soo afar xaba haysanaa kan rectangle waaye kan triangle waaye kan triangle waaye kan rectangle waaye easy waaye so too much easy so wax kale ma baahnid area maxaa waa rectangle area maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa base times height ayaa lagu helaa base times height maadaama kan ay horizontal line tahay BMD ga waxaa isticmaalaya incline line base kayga meeqa waa 2 waaye oo ah 2 meter height kayga meeqa waa 1000 hadda 1000 aan ku dhufto 2 waa 2000 waaye soo wax kale maahan ilaa aan ka gaaray xariiqintii waan soconayaa halkaas kaas ayaa tagay 2000 oo ah positive fahmayso 2000 oo positive kan imaaw 2000 ka kan maxaa waaye area labaad waa maxaa waaye triangle maadaama ay tahay halkaan kusoo dhaweeyaa siro halkaan maxaan ku haystaa waxaa sharci waxaa jiro oo la dhahay triangular low halkaan height kan ku haysta maxaa waa 400 oo loo qeybiyey distancegan aniga ma aqaano waxaa u baahanahay waa distancegan soo maaha distancegan ma aqaano laakiin total distance oo UDL ku fadhiyo waa aqaana waa 4 kan laakiin ma aqaano waxaan u bixinayaa x distancegan waa kan soo helaa oo baan x ayaan u bixinaa isag walde inta imaaw kan heightkiis meeqa waaye asina heightkiis waa asina 400 waa mujeda kan heightkiis triangle kan heightkiis meeqa waa 400 waa asina oo minus so minus plus mu baahnid inaa muujisid calaamada dhan ka tag distance-giisa waxaa u bixinaa maadaama total ahay 4 laga jira x ee noqonay maadaama totalka 4 ay ahayd laakiin 4 laga jira x ee noqonay soo marka kan ku dhufo cross multiplication samee staff oo isku dhufshay
x lagu dhufto 400 waxay noqonay 400 x noqonay is equal 400 oo lagu dhufto 400 meeqa noqonay 1600 minus 400 x waxaan soo dhaxgalay soo marka 400 x tan soo wareeji inta hada soo wareejis minus wadataa balaas noqonay ku darsan oo ah 800 x is equal to 1600 mi fahanteen si x loo helo meel walba maxaa u qaybinaa 800 oo qaybinaa intana maxaa u qaybinaa 800 so x waxay soo baxayso 1600 oo loo qaybiyay 800 taas ku qaybisana maxaa waa distance yar waa inaan soo helo 1600 oo loo qaybiyay 800 jeedin 2 meter 2 so area-deeda waa soo helo waxaa waaye 2 maadaama totalkan 4 ahayd haddii 4 2 laga jaro iyadan waxaa 2 kale so ma u baahni marka hadda so marka halkan ayaan joogaa oo 2000 ayaan haystay area of rectangle maxaa triangle maxaa waa triangle-ka waxaa waa half lagu dhuftay base lagu dhuftay height waa soo ma fahmin area-diis base-ka waa mid aan soo raadiyay oo tuga height-kan waa aqaana waa 400 kan sababtan base ku raadinayo hadda kan dhaxbartii ma raadina oo mara waa heli kartaan soo marka imaaw half iska dhig oo 0.5 u qaado times base-ka maxaan soo helay 2 times maxaan soo helay height-ka waxay istaa 400 meeqa waxay soo baxayso 400 waxay soo baxayso 400 oo ah iyadana plus soo marka meeshan waxay is 2000 hadaa 400 ku daro maxay noqonaya 2400 hadaa lagu daro 400 2000 dii lagu daro ujeedid 2000 oo 400 noqonay laakiin shape oo meeshan uu tagayo kan maadaama incline ahaa wuxuu noqonayaa kan curve inay fahanteen oo maleena kan wuxuu noqonayaa curve maadaama uu kan incline yahay kan uu UDL yahay SFD uu incline yahay shape ko meesha ku tagayo waxa waaye curve kan wuxuu noqonayaa kan oo kale oo laakiin maadaama la mid yahay wax ma ugu duuno base-kin waa isku mid height-kin waa isku mid kan wuxuu noqonayaa minus 400 oo ah wax hoos u socdo minus 400 oo hoos u socdo maadaama uu yahay kan minus kan plus oo ahay hadduu hoos u socdo maxaa sameynaa curve aan kor sameynaa oo 400 ka ahayd hoos u socona waa laga jaraa 2400 da 400 kan mujida idan 400 soo baxis 400 ka jar 2000 waxa soo baxis 2000 ay soo baxis hadda meeshan fiir marka meeshan kor soo eg wax loo damaayaan waa may SFD muxuu yahay SFD horizontal oo yahay aniga marka maxaan qaadanaa incline aan qaadanaa sida bilowga oo kala wax kala ma qaadanaa ilaa SFD incline soo marka area-dan aan raadinaa maxaa rectangle area-diis waa rectangle area-diis meeqa waa base times height waa soo marka base-keega maxaa yahay 2 height-keega maxaa yahay 1000 oo lagu dhuftay 2 meeqa waa 2000 halka maxaa ku haysta 2000 oo positive haysta kan maxaa waa negative waaye SFD-ga soo waa ka jaraya 2000 oo 2000 laga jaro maxay imaanay incline imaanaysa 0 imaanaysa waxaan u maleynayaa inaad fahanteen absolutely inaad fahanteen mar kale ayaan ku celinayaa si nadiifa maadaama uu aad si fiican u fahmi doontaan insha allah halkan imaaw oo BMD-ga imaaw BMD-ga waxaa waaye maxaa lagu helaa area of SFD lagu helaa area of SFD oo tan oo sare ah maxaa waa 1000 oo lagu dhuftay 2 waa 1000 oo lagu dhuftay 2 1000 oo lagu dhuftay 2 maxaa isoo baxayso halkan ku soo aaday waxaa isoo baxayso 2000 ay isoo baxayso 2000 area-dan maxaa soo helaa area-dan waxaa soo helaa half times base times height lagu helaa oo rectangle oo positive waxa waa ku dar waa ku daraya oo ii muuqata mujida waxaa isoo baxaysa hadaan isticmaalo iyadana 400 ay isoo baxaysa 400 da 2000 ku dar meeqo 2400 curve-ga isticmaalayno waxaan isticmaalayno waxa waaye curve waa maadaama oo aan haysto SFD ah incline ah BMD-ga wuxuu noqonayaa curve inta imaaw kan waxa isoo baxaysa 400 oo minus ay isoo baxayso soo marka 2400 oo minus waa ka jaraa curve-ga isticmaalayno waa curve oo negative sign oo dhankan hoos u socota kan kor u socota kan hoos u socota mifat wax kale ma kan waxa waaye kan cagsigiisa waaye wuxuu isbalance gareynaa kan waxa waaye waa 1000 oo lagu dhuftay 2 oo distance ah mifahmsa 1000 kan oo height ka ah oo lagu dhuftay distance-ga so 2001 negative no hoos u socda incline hoos socda simple
marka ujeedin kan waa xariiqinteen dada xariiqintaan ka soo xariiqintaan intaan wax sawirin ka hor waa la xariiqdaa soo waa isoo baxday SFD waa kana BMD waa kana waxaa ilooba inaan nima shaqareeyo casharada hore haddii SFD oo meesha uu ka soo dogo for example SFD meeshan positive ka intan positive ka waxa u socda negative meeshan xariiqintaas oo ka jarayo BMD wuxuu noqonaa maximum bending moment diagram mi fahmaysaa macnaha value-gana wuxuu noqonaa value ugu badan ee BMD mi faham waxa ugu badan ee BMD ga waxaa loo yaqaanaa maximum bending moment diagram badanaa interviewda waa la isku weydiiyaa waa meesha oo ka soo dego SFD oo positive ugu soo doo negative socda xariiqintaas oo ka jarayo qiimaha BMD ga meesha wuxuu ka noqonaa maximum bending moment diagram insha Allah cashirkan kale intaan ku guda geli doono waaniga ahaa Cabdiraxmaan Xayir insha Allah kulanto waxaan wanaagsan waxaan rajaynayaa idan insha Allah waan assignmentiyo ayaan idin soo diri doonaa groupka ayaan soo dhigi doonaa oo kuwan oo kala insha Allah laakiin inay aad fududaan